السلام عليكم ومركل يوكام تكنولوجي كسودو مقالات فائدة بدن ما كمت خيارت استعماشا جي بي واتساب سبمك سو غاداي ciladan aad ka u daran ee ku timid dhanka iyo WhatsApp-ka haddaba haddii uu muuqaalkan ku soo gaaray waxaad nasiib u yeelatay inaad ka badbaado ciladan aadka u xun ee maalmihii u dambeeyay haysatay WhatsApp-ka waxa laga yaabaa in ciladan ku soo gaadhay si aad xal u heli weyday haddaba muuqaalkan waa muuqaalkaagii haddii aad xalkayga raadin jirtayna waa kan muuqaalkaagii haddaba muuqaalkan ayaan kugu faahfaahin doonaa haddaba ka hor intaynan mawjadaheena u gudagelin bal isku day muuqaalkan inaad sii gaadhsiiso saaxiibo badan oo raadinayay ciladan xalkeeda sidoo kale haddii tahay markii wareysad kanaalka soo booqatay fadlan nagu soo bir adigoo taabanaya calaamadda subscribe-ta aad iyo aad baad mahadsan tahay haddaba saaxiib haddii aad ka mid tahay akhyaarta isticmaasha WhatsApp GB waxa kugula talinayaa in aadan isticmaalin maanta wixii ka dambeeya sababtoo ah GB WhatsApp waa halka kaliya ee ay ciladu ka timiday cilada ugu weyn ayaa waxay noqonaysaa WhatsApp GB-ga aad isticmaalayso oo maxay ku noqonaysaa su'aal kooban ayaan ku weydiinayaa WhatsApp GB-ga aad isticmaashaa ma GB-ga noocaas u egba haddii uu GB-gaas yahay ciladu waa dhankaaga ee iska delete garay hadda inta uuna meelo kale kula sii gelin haddaba waxaad samayn doontaa haddii aad isticmaali jirtay WhatsApp kan kaga muuqda ee GB-ga profile-kiisa ama icon-kiisa uu sidan yahay fadlan iska bedel hadda oo la soo deg WhatsApp update-kiisa u dambeeyay muuqaalkan ayaan xaqiisa dambe kugu tusin doonaa WhatsApp-ka aad isticmaali doonto haddaba WhatsApp-kan haddii aad isticmaashid iyo WhatsApp-kan kale ee la midka ee loo yaqaano OG WhatsApp waxaan kugula talinayaa inaad hadda kadib aadan isticmaalin WhatsApp-kan haddii aan hadda eegno update-kiisa ama version-kiisa waa WhatsApp laga tagay update-kiisa haddii aan eegno update-kiisu waa version 17 saad u jeedinba version-kiisa u dambeeyay ama update-kiisa u dambeeyna waa 18 marka waxaan kugula talinayaa inaad iska deyso WhatsApp-kan oo aad la soo degto WhatsApp-ka kale WhatsApp-kan aniga in badan laba jeer ay ciladan iga qabsatay welina ma bedelin laakiin hadda ayaan bedelayaa ciladan markii horeysay waan ku wareeray balse markii dambe ayaan xal u helay oo gartay in ciladu xagga WhatsApp-kaas ka timiday haddaba waxaad samayn doontaa Google ayaad soo geli doontaa ama Chrome-kaaga ayaad soo kicin doontaa xaggaas waxaad ku qori doontaa GB WhatsApp latest version ama version-kii u dambeeyay kadibna waxaad ku dhufan doontaa GB-gan u sareeya ama link-gan u sareeya saad u jeedinba 2023 ama 2023 ayaa ku qoran haddaba WhatsApp-ku sida tan ayuu kugu soo kacayaa profile-kiisa hore ama wejigiisa horena waa sida kii hore la soo degi jirtay qaab kale ayuu ahaa waxaad ku garanaysaa inuu update-kii u dambeeyay yahay sawirkiisa ama icon-kiisa sare waa noocaas haddaba hoos ayaad u degi doontaa waxyaabahan hadaad doonto waad akhrisan kartaa waana iska dhaafi kartaa haddaba halkan ayaad kala degi doontaa GB WhatsApp download 2023 click ayaad siin doontaa kadibna waxaad ku dhufan doontaa halkan download now ama hadda deji kadibna download anyway aad ku dhufan doontaa kadib hadda saas ayuu kugu soo degayaa WhatsApp-kii u dambeeyay WhatsApp-ka kalena waad iska delete gareyn doontaa hal mid ayaan ku sheegayaa WhatsApp-kan haddii aad ku raagto GB-ga waxa laga yaabaa inuu WhatsApp-kaaga ku xidho banned amaba aadan dib u isticmaali doonin ciladan haddii ay kugu soo noqoto dhowr mar waa digniin dhowr mar haddii ilaa 5 mar ilaa 4 mar kugu soo noqoto marka dambe sanado ay kugu xidhi doontaa kadibna banned ayaa lagu wada odhan doonaa gebiba dibna u isticmaali doontid WhatsApp-kaaga haddaba Soomaalidu waxa ku mahmaahdaa daadku intuuna ku soo gelin ayaa la iska moosaa marka intuuna ku soo gelin daadku iska moos WhatsApp-ku markuu ku soo dego waad ku dhufan doontaa kadibna waad soo install gareyn doontaa hadda waa GB-ga waa saas weeg waad soo degsan doontaa muuqaalkan haddaad ka heshay ha ilaawin aad like garayso sidoo kale saaxiibada u share garee si ay ciladan uga badbaadaan waa inoo muuqaalkan muuqaalkeena xiga aad iyo aad baad mahadsan tahay